salaan kadib aad iyo aad ayaan maanta ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaado xafladan lagu saxiixayba heshiiska dhex maraya ama is-afgaradka dhex maray hay-adda NIRA ee hay-adda aqoonsiga ee Soomaaliya iyo bangiga caalamiga ee IBS annagoo ururka bangiyada Soomaaliyeed waxaan dhiirigelinaynaa in wada shaqaynta ka dhaxaysa hay-adaha maaliyadda ee sida gaarka loo leeyahay iyo hay-adaha kale dawladda ee wada shaqaynta nagala dhaxayso ay ugu horeeyaan hay-adan maanta aan la joogno ee hay-adda NIRA oo muhiimad gaar ah u leh aqoonsi in wadanka noo helo financial sector-ka Soomaaliya xilli dheer ay ku qaadatay inuu soo gaaro heerka uu maanta joogo waa la soo daalaadhaceynay wax badan annagoo isticmaalaynay inta badan wixii aan heli karno marka aqoonsi ahaa inaan isticmaalno ha ahaadaan dawladdu aqoonsiyaasha ay soo saarto baasaboorku oo ugu weynaa laysamada shahaadooyinka dhalashada dhammaan kaararkaas aan isticmaali jirnay u badnaay aqoonsiga si macaamiisha loogu adeego laakiin taa weli ma aysan daboolin gaabkii u dhaxeeyay ahaa in adduunku uu leeyahay ma lihidiin aqoonsi midaysan ma lihidiin hay-ad aqoonsi oo jirta marka waa filahay alxamdu in dawladdii Soomaaliya hay-adan ay sameysay hirgelisay hay-adiina ay bilowday sameynta iyo diiwaangelinta dadweynaha ay bilowday financial sector-ka markaan usoo laabto muhiimad gaar ay noo leedahay maadaama ay kaabayso shaqadii ahayn ay kaabayso maadaama ay kaabayso in aan aqoonsano waxyaabaha loo yaqaano KYC-ga improvement aad iyo aad weyn ay ku sameynayso ama know your customer oo ah in qofka aan u adeegayno ee macaamilka inaan naqaano dadka uu nooga soocan yahay aysan iskaga keen darsameen dadka aysan iskaga keen darsameen bangiyada waxaa hay-adaha loo igmaday inay deposit taking ama hanti ay dadweyne ay qabtaan marka lacagtaas ay hayaan dib waxay ugu celiyaan dhaqaale ay ugu celiyaan ama dad badan la deemiyaa la siiyaa marka in xogta sax laga haayo dadkaas bangiyada ay la tacaamulayaan iyo meel kasta ay marayaan aad ay muhiim noogu tahay sidoo kale waxay muhiimad gaar ah u leedahay xiriirka aan leenahay bangiyada caalamiga ee correspondent bankiska oo maalin kasta bangiyadeena la weydiiyo xiriirka aan la leenahay kuwaas caalamiga number 1 uu ka yahay national ID-ga ama ma leedihiin aqoonsi oo midaysan oo waddanka oo dhan ah taa waan isleeyahay maanta gundigay u tahay in bangiga IBS uu noqdo bangiga icebreaker uu noqdo in laga heli doono hadda kadib xarumaha bangiyada laga heli doono adeegii aqoonsiga laga heli doono oo macaamiil aysan bangi intay yimaadaan especially IBS maanta aan u joogno inaysan uga laabanaynin aqoonsi ma lihid bangiyada waajibaadii kay ka mid tahay in qofkii yimaada aqoonsi saxa laga reebo marka aqoonsi maanta ilaa biometric oo farihii qofka laga qaadayo oo dhammaystiran yahay waxaan isleeyahay guul aad iyo aad weyn waaye financial sector-ka Soomaaliya u soo hoyatay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa isku xirkeennii adduunkana inuu kor u soo kici doono insha Allah sidoo kale sanadkan waxaan mari doonaa qiimeyn oo Soomaaliya habka maaliyadeeda lagu sameeyo doono mutual evaluation exercise aan sanadkan marayna insha Allah taala oo bisha Agoosto aan filaa ee hadda soo socota taana wuxuu ka tiri doonaa wax aad iyo aad u weyn diri doonaa Soomaaliya waxaan isleeyahay insha Allah taala inaan ku guuleysan doono meel fiicanna oo aqoonsiga uu gaari doono marka khiyaar badan ay iga dambeyn doonta aad iyo aad u mahadsantiin waana ku faraxsanahay mar kale inaan goobjoog ka aado xafladan mahadsantiin